qabyaaladdu waxay ka mid tahay xaqiiqatan dhaqanada ugu liita ee bulsho wanaagsan baabiin kara xataa haddii isku af isku dhaqan isku diiniya deegaan yihiin waana waxa ugu badan ee dadkeenu iska wacyigeliyaan haddana ku dhaqmaan iminka meel baynu ka hadlanahay waraysi baad iga qaadasaa qabyaaladaynu ka hadlana ama qofku maqaaxiya ka hadla ama social media ka hadla ama tv ka hadle wuxuu ku oranaya war baashaas waa xuntii naga daaya haddana kama badna marka dadkeeni badankoodu waxay noqdeen qof xanuunsanaya oo xanuunkii hayay qof kale ka daweynaya isna isdaweynaya isdiifinaya mar kasta oo cabsalaan oo sharcigu sareeyo qabyaaladda iyo adeegsigeedu wuu shaqaa mar kasta oo sharcigu daciifana qabyaaladda iyo adeegsigeedu ama ku dhaqankeedu wuu xoogeystaa taasina waxay ku tusaysaa in qabyaaladda iyo sharci darradu mataana yihiin siday caajiska iyo fakhriguba mataana u yihiin inta horta maxay ahaydee Soomaalidu noolayd ee dadku gabayeen abwaanadu inta wacyigelin ayuun bay sheegayeen maantana waa la sheegaa dadkuna waqtigan haddaad gabay fiican oo qabyaaladda tiriso wax ka badan taankiyo oo dhaafsiisan ma jirto wuu kuu sheegayaa inuu gabaygu fiican yahay haddana halkiibuu ka miisaya beri dhaweyd waxaan sameeyey heesta la yidhaha hankaagu ha dhaaf reer hebel kadibna nin aan saaxiibanahay oo Axmed Cusmaan Batuul la yiraahdo ila soo hadlay wuxuu yiri war xasan war niyo hees wanaagsan baad samaysay oo tiiban kule markaas uu yidhi hankaagu ha dhaaf laakiin sidaa ina tiraahdo ma ahayne waxa la lahayd hantida kaliya la heli karay hugii dadka hubkii weeye halkaynu u dhaaf reer hebel ma garato Absalaan waxaad aragtaa dad badan oo ku faanaya laandheeranahay oo laabta garaacaya waraadar kuma faani kartid waxba laabta ismadoobay inaad laandheeran noqoto ma shaqaa qabatayba horta bise waxa dooratay waxaad ku faani kartaa dad moofo yar samaysay maqaaxi samaysay adoo dad wuxuu soo beerisay soo kordhisay waad ku faani kartaa iminka dhararkayga waxba kama bedeli karo kuma faani karo waayo ma doore sidaana dhararkayga ugu faani karin ayaana reerkan ka soo jeedo iyo qabiilkaygana ku faani karin mana jiro qabiil ka fiican iyo qof ka fiican baa jira wadaga fiicnaan kartaa dhaqan ahaan asluub ahaan aqoon ahaan dhinac walba laakiin waxa laga yaabaa inaan adiga qabiil fiicnaan farihiinuna ma sinna markii aad ii sheegtay in barnaamij aad iga qabanayso waxa jiray qoraan wadood igu dul qabatay ma xafisani laakiin waa ku akhrin karaa kuwii horena waa bay badan yihiin oo qorraxdan dhalataa qisooyin dhasho taariikh qortaa xaqiiqda qirto qabyadu noloshay ka qayb tahayo dunida qaxarka qareen laaho haddaad qani tahay in baa qubano haddaad qunu taal in baa qaxayso haddii qulqulka biyuhu qotomaan in baa kula qaban macada qaaro qoriga wax diliya qaraxya ku dhintay haddaad qaldanay haddana qumanay bulshay qoosay haddana qastilaay qorin isku mid ah afkiya qowlku qaadirku ku abuuray meel quro oo sasun kala qaba qumaatitiin ugu qoomiyeedo dunida quwadla afkaar kala qaba dastuurna qortee kursiga ha qabsada qabiilkaanahay nabadda ha u qomin qanaad ku tee waxa kamid ah intay qolo u qaybsan yihiin qabiilka intay qadarin u hayaan intay qarfajaan u sii qaxayaan intay qalqalooc qumani badayaan dasuugaanta qabyaaladdan ka tiriyaad bay fara badan yihiin laakiin imika waxa laga yaabaa in 500 oo heesood leeyahay dadku waxay weydiiyaan warteebaad jecesha wartaan mar kasta ta ugu dambaysa marka dabka saar ayuu man jecelahay waxaan taa uga socdaa markii aad igu wargelisay xalay aad ila soo hadashay inaad barnaamij qabyaaladda ku saabsan duuba soo iga qabanayso waxa maskaxdayda ku soo dhacday war kuwii hore dadku way maqleeyeen bal in yaroo cusub qor marka waxaan qabyaaladii gumaad iyo naf la gooyay mooyee miyay gogol amaan iyo guri nabada leedahay geeri waan ku aragnay miyay gaabka nololeed gacan saar la leedahay fidmo wala ku guuro ku gabraarta mooyee qof ay garab u noqoto lib ka gaadhay maqasheen kuma geedka reernimo weli midho ka goosto gudublii habeen laday kursi nimay u goyso guudka saartay aragne muxuu galay muxuu guday ma gufeeyey baahida geygana muxuu taray gefka inay u hooy tahay gudintii sharkana tahay balaayada u guri tahay gaadiidkii jahliga tahay barta lagu goblamo iyo geerida u ehel tahay dhufays tuugu gala tahay barbaar gowracee tahay gaashaanka dhagartee ninka xuni gaboodsado
ama tahay magaratadu dabka ay ku gurantee gubatee ku leedee gankeed kaga habsaantee ku sidano gasheenna horta mayla garateen garashada maxbuuska ah maanta iyo shalay guran berritana mugdigu galay teeda horey gaadhaye hadhaadigaa gargaar iyo gurmad culus u baahane guushayda maqaneey anigaa isgabayoo hanyaridu u goysee haddii aan isgarabsado waxaan dhalin lahaa gool